السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا كسو دوادا مقالكينا مانتا waxaanu ku falanqeyn doonaa goosgooskii koowaad ee laga soo bandhigay qaybta 184 ee taxaniga gundiga Cusmaan. Goosgooskaas oo ahaa markaasi mid aad iyo aad u xiiso badan. Fadlan haddii channelka cusub tahay subscribe noo saar hore haddii nala joogtay muuqaalka inoo la garay daawada aad iyo aad ayaadna u maasan tahay. Intaynan guda gelin muuqaalka ka horana ku saliya xabiibkana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. hadeerna si toos ah aynu u gudagalno muuqaalkeena maanta muuqaalka falanqeynta xalqada oo dhameystiran dhanka community aad ka daawan kartaan ama channelka gulwada ayuu yaalaa saakidana soo dhignay insha Allah halkaas aad kala socon kartaan maadaama xoogaa channelka verification uu isaga baahan yahay muddo adiga wax 20 daqiiqo badan muuqaalaad aan la soo gali karin channelkan marka sidaas darteeda halka ayaad ka daawan kartaan aad iyo aad ay u maasantihiin goosgooska ayaana markaasi faaladiisii hadeerna aynu gudagaleynaa goosgooska faaladiisa waxa uu ku bilaabmayaa markaasi naagta lagu magacaabo bigum ayaa waxay la hadlaysaa markaasi ninkii ilbay ahaa waxayna leedahay ilbay naagta soo socotay tahay ay weydiinaysaa qof waxaynu arkaynaa markaasi dumar ah isla marhaantaasna labiska ugu dambeeyay ay labisan tahay way ciidi rabtaa u maleynaa gadaasheedana markaasi ciidan Mongolis ayaa taagan waxa uu leeyahay markaasi qoftan sida iftiinkii oo kale ayay u dhalaalaysaa laakiin gadaasheeda waa mugdi oo uu kala jeedo markaasi qofkan qof qurxan waa u egyahay laakiin shar ayaa gadaasheeda taalo oo Mongolis ayaa daba socdo marka qeer soo masida ayuu kala jeedaa sifada uu ka bixiyo markaasi ilbayna cajiib ayay ahayd isla marhaantaasna qoftani waxay imaanaysaa qabiilkii mudan Cusmaan hadeerna ay xukumaan markaasi ilbay iyo sidoo kale tabay eegii lagu magacaabay Ologaan kadibna waxaynu ogaanaynaa markaasi qofta magaceeda in la yiraahdo markaasi Isaan Bike in la yiraahdo ayaanu ogaanaynaa waxaana dhalay markaasi Oljayto khaankii weynaa iyadaaba sheeganayso waxaan ahay ay leedahay gabadha uu dhalay markaasi Oljayto khaankii weynaa ee markaasi xukuumaya hadeer dawladda ilkhaniinta ee Mongoliska oo xukunkeeda markaa hadda xogaa daciif iska sii yahayba markii gabadhaani ciidan ayaa soo kaxaysatay hadeerna waxaan aragnaa markaasi Cusmaan inay awood kale u timid hadeer waxa laga naxay kaliya ninkii Ologaan ahaa Ologaan hadda doorkiisa hoos in loo dhigi doono ay u badan tahay sidaas darteedna doorka markaasi kor loo qaadi doono naagtan oo taxanaha iyada ku cusub xalqooyinka soo socdana iyada noqon doonto markaasi tan ugu awood sareeyay Cusmaan la dagaalami doonto andan waxaan arkaynaa markaasi ninkii Jarkutay ahaa oo la sheekaysanaya Boran hadaladoodina waxa kamid ahaa Jarkutay isaga oo sifeynaya ama tilmaamaya naagta hadda taxanaha ku soo birtay waxa uu leeyahay raantii Ologaan wuxuu noqon doonaa markaasi har ama hoos ayuu noqon doonaa saa u taqaanid qoftaan hadda taxanaha ku soo birtay Isaan Bikeedana waxa weeye ayuu leeyahay markaasi qoraxdii har lama helo hadaysan iftiin uusan jirin markii qoraxdayba iyada ayuu leeyahay qoftaan ayaa ka sareysa mana isku dhaw ayuu leeyahay qoftaan maadaama hadeer ay timidna qof walba iyada u dhawaado waa uu guban doonaa ayuu leeyahay ninkii Jarkutay lagu magacaabo waqti culus ayaana ina sugay anaga wax walbana hadda laga bilaabo waxay noqon doonaan wax adag waxaana wajihi doonaa ayuu leeyahay markaasi cadowgii ugu awood badnaa boosdagna waxay u badan tahay qoftaan awoodeeda inuu ka dhigi doono mid heer sare ah marka doorarka oo cadowga kale markii ay matalayaan dumarka wuxuu ka dhigaa kuwa sareeyo waxaana tusaale kugu filan banaagta lagu magacaabo Sofia oo kaleeto kadibna waxa arkaynaa mudan Cusmaan oo baala markaasi hadallo qurxoon ku dhahay hadaladiisana waxa kamid ahaa waxaad ii tahay gaashaan ayuu leeyahay may aniga ayaa gaashaan adiga ku noqonay ayuu leeyahay oo gaashaankii ku difaaci lahaa ayaan nahay adigana waxa tahay ayuu leeyahay ama baad ahaanaysaa markaasi saaxiibadeedii mar walbeetana dagaalka igula duusha cadowga guushana ila soo hida haddii aan adiga ku haysan lahayn waan guul dareysan lahaa ayuu leeyahay run badan noolahan kadibna markaasi Isaan Bike waxa lagu soo hadal qaadayaa Cusmaan iyo sidoo kale Ologaan arinka isku haystaan oo ah in Cusmaan uu diiday gabi ahaanba in uu bixiyo markaasi wax canshuur ah kadibna waxay leedahay Cusmaan canshuurta waan ka qaadanayaa waxaan kale oo ka qaadanayaa gabadhiisa uu jecel yahay aniga ayuu igu soo wareejinayaa dawladeena ayuuna gacanta u soo gelinayaa marnaba isma waali kara moogta Cusmaan gabadhiisa ka dhiibade wuxuu ku qasban yahay markaasi maadaama gabadhiisa ay dawladdan ay ka kaxaysteen ama xidid uu ka dhaxmaray labadooda inuu mar walba u hogaansamo amarada dawladda ilkhaniinta marka islaanta waxayba leedahayba Cusmaan canshuuraadkii waa laga qaadayaa oo lagu waajib yeelay inuu bixiyo oo Brian dam uu keenay inuu diiday gabi ahaanba
waxaan kaleetoona ka qaadanayaa ayay leedahay markaasi gabadhii uu jeclaa oo kala jeeda markaasi gabadha Faadima lagu magacaabo. Arrinkaasina waxaa loo soo bandhigayaa Mudane Cusmaan wadatashi ayuuna ka sameynayaa isaga oo markaasi ehelkiisii halkaas ugu keenayaan arkeena. Habeenimadiina waxaa arkeena markaasi Yuusuf iyo waxaa kulmaya Faadimana hadaladeed waxaa ka mid ahaa Yuusuf iyadoo la hadlaysay inayba ku dhahday aniga Mongooliska ayaa iga soo dalbadeen aabahayga. Waxay u badan tahay marka in la bixin doono camal ayay leedahay maadaama la isoo codsaday. Ninkaana waxa uu leeyahay markaasi adiga si ay Mongooliska ku qaataan amaba gacantii ay kugu dhigaan waxa waajib ah marka hore in aniga iga soo talaabaan kulaha oo meedkayga ay ka soo talaabaan sida ayaa waajib noqonaysa marka horeeto. macquul ma ahan wax lagu wareejinayna ma jiraan ayuu leeyahay mar walbana waxaan diyaar u ahay dartaad inaa u dhinta camal ayuu ka wadaa sheekooyinkii ayuu bilaabay ninkani. ajaayib sheeqoodhe ajaayib. waxaa arki karnaa marka maadaama saaxiibkiisa Aruja uu meesha isaga baxay xafaaltaga ka dhaxeeyay hadda ninkani booska isagu unba u soo haray marka sidaas ay u egtahay. boosdagna dhankaas ayuu u wareejin rabaa marka ninkan iyo naagtan baa ugu dambeyn la isku keen rabaa. siisanka bilowgiisana waaba sii filayay inuu ninkan naagta isku dambeyn doonaan. haddana waxaa ka aragnaa markaasi xoogaa jecel iyo waxba haya ninkani walaashiisiina wuxuu uga soo go'ay markaasi Mudane Cusmaan dartiisa oo isla mar ahaantaas maadaama iyada khiyaanole ay noqotay ninkanina Cusmaan waa inuu ku abaalgudaa markaasi inuu gabadhiisa u guuriyo waa sida saxda ah. kulay ninkan waxa uu leeyahay markaasi Mongooliska waxay kula wareegi karaan ma lahan waa inay meedkayga ka soo talaabo marka hore qofku u baahan inuu adiga kula wareego ama ku kaxaystay ayuu leeyahay. ajaayib waay. bal afkaartiina idinkana dhanka hoose comments-ka nagula wadaaga aad ka qabtaan markaasi xiriirka ee ka dhaxeeya Faadima iyo sidoo kale taba ninkii Yuusuf lagu magacaabo. ama ninkii lagu magacaabayo Ologaan waxa uu war ku qaadayaa qawaa'ilada kale ee Mudane Cusmaan ka agdhow waxa uuna markaasi ciidamadiisa amar ku siinayay teendooyinka inay burburiyaan dadka qabiilka ku dhex jiraan dhammaan madaxyada ay ka wada guraan. amarkayga waa uu leeyahay markaasi ficilka noocaas lagu dhaqaaqo. waxaan arkaynaa iyaga oo Mongooliska dad badan baabiinayaan meeshan ku asturayaan. kadibna waxaa arkaynaa gabadhii cusbeed ee Isaan BK lagu magacaabayay oo dhahayso laga bilaabo hadeer aniga ayaa ah qofka go'aamin doono dhulkan in nabad lagula sii noolaan doono iyo in dagaal uu ka sii socon doono. qofka kaliya go'aamin kara waa aniga ayay leedahay qof kale ma ahan. haddii aan iraado dagaalka waa la joojin wuu joogsan haddii aan iraado dagaalka wuu socon ayay leedahay. nabadda iyo sidoo kale dagaalka gacanteeda ayay ku jiraan maadaama anigu hadda aan soo laabtay oo waliba ahay Oljayto Khan gabadhiisii ayay leedahay iyadoo bootaynaysa ayaan arkaynaa markaasi. goobtaasina dagaal wacdaro weyn ayaa ka dhacayo isla mar ahaantaasna lagu soo bandhigay. runaantiina waxaa la dhigi karaa markaan qoftaan caadi ma ahan awood kale ayay la imaanaysaaba. Cusmaan aad buu uga xanaaqayaa gabadhan waxyaabaha ay sameynayso. kadibna inta soo hor istaaga ayuu leeyahay Isaan BK sii joog dhulkeena si aynu u aragno markaasi awoodda aad adiga leedahay aadna ku doonaysa markaasi inaan anaga jilbaha dhulka ku dhigano. ma naga yeeli kartaa ayuu leeyahay inaan noqono kuwa adiga jilbaha dhulka ku dhigtay isla mar ahaantaasna amaradaada qaata. awoodda noocaas haddii aad u malaynayso inay kugu jirto bal inoo muuji oo na tus waxa aad awooddo ayuu leeyahay. iyadoona markaasi Cusmaan indhihiisii sidii yeedii iyo kulmarkaasi ayeen aad u xanaaqsan yahay ayaana markaasi goosgooska sidaas ku soo dhamaanaya. marka daawadayaal wixii afkaartiina dhanka hoose comments-ka nagula wadaaga aad iyo aad u maasantihiin goosgooskana intaas baa markaasi ku jirtay. muuqaalkeena maanta intaasan ku soo koobay intaan ku kulmi doono muuqaalkiisa waxa idinkaga tagay salaanta salaamka salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.